السلام عليكم. sida loo noqdaa ganacsi asaasi weligaa ma ku fikirtay inaad ganacsi asaasto see ma ku guul daraysatay intaas tiri asaas halkan waxay noogu soo gudbinayaa talooyin aad u faa'iido badan oo ku saabsan habka ganacsi asaasi loo noqdo fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalkan wanaag subscribe dheh videogana like saar talooyinkan ayaa waxaynu ka soo dheehanay ama ka soo qaadanay MJ Dimake waa ganacsi asaase milyaneer ah wuxuuna qoray buug la yiraahdo The Millionaire Fast Lane qoraagu wuxuu buugan faahfaahin kaga bixiyay siduu ku noqday milyaneer isagoo nolosha ka soo bilaabay meel hoose waxa kaloo buugga ku soo jeediyay talooyin aad u fiican oo ku saabsan horumarka iyo ganacsiga oo qof kasta ay ku dabaqi karo noloshiisa qoraagu wuxuu ku soo koray magaalo Mareykan ku taal wuxuuna ka dhashay qoys aan wax badan haysan beriguu yaraa ayuu maalin arkay nin dhalinyaro ah oo wata baabuurka qaaliga ee loo yaqaano Lamborghini maalinkaas ayuu qoraagu go'aansaday inuu taajir noqdo inta aanu gaboobin qoraagu wuxuu qeexay dariiqa uu isagu ku taajiray uuna u bixiyay The Fast Lane haddaba jidka ugu dhaqsaha badan ee taajirnimada waa inaad noqotid ganacsi asaas laakiin ogow jidkan ugu dhaqsaha badan wuxuu u baahan yahay dadaal iyo daacadnimo qoraaga buugani wuxuu soo bandhigay talooyin aad u faa'iido badan oo ku saabsan habka ganacsi asaasi loo noqdo talada ugu horeysa ee qoraagu waa marka ugu horeysa waa inaad u fikirtid sida wax soo saare haddaad u fiirsatid badeecad kastoo gadatid iyo adeeg kastoo isticmaashid dad kula mid ah ayaa sameeyay haddaad go'aansatid inaad noqotid ganacsi asaasi naajix ah waa inaad go'aansatid inaad weliga ahaanun macbiil ama customer ee aad noqotid wax soo saare talada labaad ee ugu dambaysa mawduuceenu waa sirta guusha kuma jirto fikradda ganacsi ee aad haysatid waxay ku jirtaa habkaad u fulisid fikraddaas inuu ganacsigaagu najaxo iyo in kale waxay ku xidhan tahay habka aad u fulisid fikraddaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته